Bismillahirrahmanirrahiim. Maanta taariikhdu ay ku beegan tahay 21 September 2021. Ujeedo magacaabis xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Xeer madaxweyne tiro nambarkeedu yahay eber 56 21 September 2021 kuna saabsan magacaabis xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48 farqadiisa koowaad qodobka 58 farqadiisa koowaad xarafka a iyo qodobka 75aad markuu tixgeliyay tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyay aqoonta iyo aragnimada mudanaha jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan qodobka koowaad magacaabis xeer ilaaliyaha guud laga bilaabo maanta taariikhdu ay ku beegan tahay 21 September 2021 wuxuu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdigaren oo u magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Aadan Mukhtaar Shuuriye in uu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed. Qodobka labaad dhaqangalka xeerkan wuxuu dhaqangal noqon doonaa marka uu saxiix madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdigaren oo ah madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya una saxiixay wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.